هذه بطلوا الجوار كان وحاطوا هو يكور أي كوريسة السجى وحاول يحكي له بالتبنادوي وبرنا مركا أنت الناس حتى الكور عن كهلين إن عن مقعيد هذا الشيء بس إذا يكره وبر عبد الله وبر عبدي وبر حسن وبر عثمان وبر علي وبر عمر وبر عبدي وبر علمي وبر عمر وبر آمن وبر برالة وبر إيلو لما يتوان كاس وبر واستبدت جوكتي أيو إليه هذا بيش الدولي مركا عن كور هم التاريخ دائي حتى نقول وبر كم مركب الدوم أيو أما لبقرة أيو ولا حوها دقودي جلبي بدل لما يتوان جلب وليه هاي هل جلب أو كم دوي واحد بارتي وبرين سايلين يا لقى دحسارة وانا ضد إصلاح ولي وبر كان مركو دنتو ويل البدن بوليه هاي ويل شودن معها ولا بارا ولا حلا دبي عدودا لا إيجا مركا متم بالغنا بحا هبلو دوبا نوعوي وبركا وحال يقعد سدين لي يري مارتي والترجمان هذا الكلام يعني يقول وحاويه مركي هبل اللي يري هذا ونن مارتي يسكو راعه وحاويه انت جلب وجودي هي مبيروت مد والبا بقول لي تبني افر بقى ايو سو صاري تبني لما جلب ومن بقول لي تبني افر بري على صاري تبني لما ما سو ايمانيسا كدنا بقول لي تبني افر بري صاري انت مركي لغا غدبو وبركا مكتيسه ايا لبخني مكتيسه ايا لبخني مثل لبخني ايو waxa kamid ah waxa alla wuxuu qabiilkaas ku dhaqan koow boqol geela laba boqol la saddex boqol ari afar zamankii hore wabarkan iyo warcad ka hore waxa la bixin jiray oo reerka lahaayeen farda boqol faras boqol gaasha laakiin hadda wabarkan maadaama fardihii ay jirin laba bixiyo iyo gaashaanka labadaba waxa la bixinaa marka boqol waran boqol bilaaba boqol masaar boqol karfan oo wixii reerkaas asku dhaqmaayo dhan ayaa la bixinay sababtoo ah waxa la doonayaa in ninkan jifidu ka dhashay ay sheegaan oo waa wiilkan ay dhigeen hadduu dhinto in ay maaragtay bad dadka weydiisanay marka waxa iska leh dugoodii oo dhan baa ayaga waxooda hore u qabaan mar labaad xoolaha waxa loo bixinayo waxa weeye in uu dhaxdhaxaad ahaada nin maaragtay laga soo dhaxbiyay jifidiisa inuu yahay inuu ogaado marka noocaas ayaa maaragtay loo baqraa waxa weeye 12 jilib caano dhaay ah oo saddexda adduunyo geel u horeeya ayaa lagu shubaa caanahaas ayaa lagu shubaa milaax hal geel oo anaga naqaano hadda goobta ku sheegayna milaax kamid ah yaa la soo diraa milaax isla taqaana u maleynaa Soomaali milaax waa taqaana ama diir milaax dayida ah ayaa lagu duubaa dugoodiyo oo dhan male marka hal jilib oo dugoodiyaha kamid ah oo Jibraa'iil yiraahdo Maxamed Jibraa'iil ayaa iska leh waxa kale qolada waxay leedahay tufta waa ku tuftaa quraan la saaraa quraanka masara iska leh afarta gujiga midigta bidaxdii hori ee afar sheekh oo masara ay bara say kala culusiin diinka marka ay afarta akhrisa ayaa dugoodiyo kalena ayuu maartay akhrisku soo galaa marka habduubkiisa noocaas weeye habka diinka loo saarana muxuu ahaa sheek waa noocyada wuxuu leeyahay guddi 14 oo guurti leeyahay guurtiga waa guddi filin ayaga maamul kale waxaa jira 121 ay kuwaas ku jiraan ayaa barlamaan marka barlamaanka wuxuu shiraa 3 jeer koow dawladda dhaqmay markaa isbedeshay seen uga dhaqanaa dawladdu waa isbedeshay la soconay seen ula socdaa seen ugu badbaadnaa seen ula qabsanaa waa hal mar talyaaniga ingiriiski gobolkii joogay sidaas uu suubiyay kadib xayl sidaas markuu dhacay ingiriiska sidaas suubiyay
درجي مركو دحي أو درجي أي قبسدين محو هاي شيء أوركان محو ساي دولدان عصب يهادي أي قبسدين فرق أسير واحد سوبي هذا نفس الدائرة إثبات كان إسلا يهادي كتحدير كدحي habka loo qabsan lahaa 120 kooga barlamaanka iyo boqorkii hogaaminaya kooga sikay waa la fariistay waa laga sheegay habka loo qabsan lahaa waa loo sheegay waxa kale oo fariistaan barlamaanku wuxuu fariistaa markay abaar dhacdo abaar adag waxa waa la fariistaa reerkaas lagu bixiyaa dirisida dhulkooda uu deegaanka leeyahay ama daaq leeyahay ayaa guddiyaal loo kala diraa hadday tahay dhanka Soomaaliya hadday tahay dhanka Kenya hadday tahay dhankan walaalahayn Oromoon diriska nahay ayaa dad loo kala diraa waa hal qodobayday abaarta habkii loogu bixi lahaa ayaa laga tashtaa go'aanka la gaari ayaa lagu socdaa waxa kale hadday colaad adag reerka qabsato colaadaas dhacday habkii loogu bixi lahaa nabad lagu raadin lahaa ayaa hadana muxuu ahaa ayaa laga shiraa shirarka la shirana maxaa kamid ah saddexdaas شيبا جربا محوها أيام الشراء ومركا مركا جودي عن بقولي لباتنكا أما جودي عن أفري طوانكا أرنت جرت مركي صور وياه وادجيستا أسيغا بقى تعودكا هدي جودي جيسي هاي هداي قبائلك للشراء هدا دولد للشراء مقاطع هذا الكهوري كماله وادجيستا ماشي سؤال وجرته وسؤاله قدوه كان أساس كله mar hadduu asiga gadoomiye gacanta lama taagi karo muxuu ahaa sheeg waa xarintay sheekada waxa lagu go'aan asiga gaar ayaa la gaaray yaa la qaataa waxa kale oo jira guddiga 14ka hadalku waan booban male guddiga 14ka waa fariisanaya waa dhax fadhiya waa dhageysanaya arrinta laga hadlayay hadday maartay sinaadaan أما أيدينا عبادته ماشي سؤال كذا وجيبينيا لكن قدوك أشياء أشكال هذه أهرم تجيب إيه أي أفعين أو سيد كان كل عين أي قنين سيد أسير أوجي هذا أيام هذا قعان كيسي أيام هذا وحولي هاي أفيام بولي هاي ورك أسير كيسو تبيه واحد قال هو الجاري وما بيجارسيه أيولي هذا وقت قال الجواب معلم عمر معلم بسن بالي هذا هو اللي قال كافر استاك نكاس أيام مارس محوها يشك هاي قديقة كحوي كيسة أنا جو عبد الله حاج عدو وياها حكيم بولي هاي وحالي هذا مع محوها جور وحالي جور بسلي وحكيم تيسين جور بسلوي قديالك كلنا حمن أيه مركا جوديا وحلو سوبي سد حدانين وحوي هذا دب كدب أروري بالخبا أو جودي سكوير أو جوانك ورفيدية صوتاس أيا أمارك محوها أي تهاي وحكلون قبلنا أو شغليسة بهاش اللي هذا نبت قليله ومركا وحكون السنة هاي نبت قليل علك استور نعه قبيلة درس كان هدان علونه إلا وحال جوايه إلا شن لحجر جود للدرة إرجال للدرة إلا لنا بدوبة ما رك أي جود إلا تضرب جرب للدرة هذه نبدأ أي ديدان تضرب جر كذب هبك السكيج علينا هبك السكيج الدفاع على مركز كذب أي اللي قال يا تضرب إرجال للدرة تلعب ما أمر عل ما أمر ده كسول اللي قد له حولك السول قادر ما أمر مركا حالك وبر هذا صوت كوبه محوها يشك نوع عاص نبتقليه أيوه يكون سيهاي وما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Our special guests who are with us, the representative who was giving the history of the Wabar. For those who are not familiar with the language, he has explained what the Wabar or king of the Saransor and the Dogodia is, what his roles are, how he is picked, the royalty of the family. They all come
from one family and one subsection, how when the boys among them, there have been 12 Wabars so far, the dynasty, the royalty lineage, and since then, when the boys are growing up, their character is observed, one is picked, all the 12 sub-tribes of the community are involved, all the necessary payments of camels, goats, cows, spears, knives, and axes are given as symbolic gestures. And most importantly, he outlined, that's why you're seeing all these governors who are here, you're seeing these ambassadors who are here. The Wabar stands for peace, he leads the community. And in Ethiopia, he has a special council, which is the equivalent of a parliament. And ever since the days of the Italians and the British colonialists, the Wabars have been there. They have withstood the rigors of colonialism to maintain that honest structure of integrity. And even up to today, they're recognized by the administrations of independent Ethiopia, have always been recognized, including the current one. And he outlined that the special parliament actually makes special sittings, particularly during droughts. You know, our people, the knives are out. The Wabar is the messenger, the leader, and the royalty of peace, and he ensures that during that time, all communities, the message of peace is spread. And most importantly, for example, he gave our neighbors, he said they're the Oromos, and whenever there's tension, he reaches out to the Oromos and ensures diplomacy. His message, he says, here right now will be peace, peace, end of clan clashes and unity. And he also, as you saw, people were clapping when he introduced his spokesman and several deputies and members of the delegation. So the media, you'll bear with us. The Wabar, you've been told, from one family, one lineage, one clan, specially picked, selected, and the current one, whom I shall ask, and it will be translated to him, that all of you pay him a courtesy round of applause, is Wabar Abdille, Wabar Abdi. So big him a coffee, and you can tell him that indeed all our leaders are recognizing his presence. ومحتنتين program كأن هروب بدنينا إن شاء الله ووركنا وحنا في إنجليز وبشجعنا مدح دودان ولا لهن هل كان إما علماء الدين كودان إن أي كسودوين يان أدقي يوجد هذا سودو هذا وحنا باينا نويا يتيم كحجة وعلماء ديني سدح علماء يانو هل دونتو وقت ما هيسنو waxaan ka codsanaynaa culamadeena inkastoo ay aad iyo aad u jecel yihiin wax fiican inay noo sheegaan oo ku wanaagsan tahay waqti badan inaan siina haddana saddex daqiiqo ayaan siini karnaa ayaga uma 3 daqiiqo siinayna insha Allah dadka kale 2 daqiiqo weeyaan waxaan ku bilaabaynaa Sheikh Maxamed Alasow wadaadaha waxay jecel yihiin inay ayaga isu wareejiyaan Sheikh Maxamed ayaa noo soo socday insha Allah isaga ayaan u yeeri doono labada sheekh oo kale oo insha Allah isaga weelis بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ولا لها مسؤولين سياسة علماء علماء الدين مدحدين الضمان وديالك الدقنك وجوه الرئية أبيهن ولالكن وور عبد الله دمانتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام كدب أيها الإخوة وحبا أنيgu kama hadlahayo waxaan leeyahay waxa meesha iskugu imaaday waa ummadii aan ka dhalanay oo Soomaaliyeed waxayna ka imaaday wadan kasta oo deganeed inta ugu badan wadamadii ugu muhiimsanaay wadankii asalka ahaay oo ka imaadnay Soomaali wadankeena aan joogno oo Kenya wadankeena kale oo labaad saddexaad oo Ethiopia saddexdan wadan ayaan ka imaadnay waa meelaha ummadda aan ka dhalanay ay ugu badan tahay shirkana waa shir Soomaaliyeed ma ahin shir qoys gaar ahaan ma ahin Soomaali waxaan leeyahay Soomaaliyay soo dhawaada waxaan idin leenahay mid noqda walaalo noqda gacanta isqabsada waxaan nahay dad muslimiin ah oo diin leh oo diinta islaamka inay ku dhagaan u baahan yahay baan nahay diinta islaamka ku dhaga qabsada ku toosnaada
adinkana is ixtiraama waxaan idin leeyahay qof kasta oo Soomaali ah oo tuula mas'uulka ah iyo wixii ka weyn ummadda Soomaaliyeed mas'uul u tahay Soomaalinimada iyo muslimnimada ilaali qof kasta oo tuula jooga jiif iyo assistant jiif ilaa meel walba darajo kasta oo leedahay oo tuula jooga oo Soomaali ah ummadaas ayaa mas'uul u tahay ummadnimada ilaali Ilaahay subhanahu wa ta'ala kalimadeena mid ha ka dhigay sida ayaan ummadirta ku noqonaynaa waxaan aad ugu faraxsanahay wadanka ay ka imaadeen martideena aan soo dhaweynayna Umar Abdullah iyo dadka la socday ay ka imaadeen Ethiopia oo wadankeena saddexaad runtii Soomaali kan Ethiopia يعني ودمدنا أي كمتاي وحكد عيا أو إسبدل أو وناجة أو إحترام أو مارت هرانا نجري جري دبك ومد هاين جري ولا بدل بان أدو كفر حسن هاي أو نوتهنينا ودن كاسرين تكبعي كبعضي وحنا لنا هاي كر الله إذن كدقي ودد إلى كسحد وسكسعتين كسعد وحنا إذن لنا كلمات وقدم بيسون ليا وحوي وحاميش هنجوجا مدح صدق iyo odayaal dhaqameedkii culamaa u diinkii waa leebaladii ugu sareysay ummadda intiinaas haddaad isqabsataan oo dhinac sax ku socotaan oo isla socotaan ummadda way noolaatay wayna midoobaysaa waxaana midaynaysa islaamnimo waxaana midaynaysa soomaalinimo waxaana midaynaysa jiraannimo isku af baan nahay dhammaanteen haddaan arrin yar isxasuusino waxaas nin walba ka xanuunsan yahay maanta cunuga muslimka oo Falastiin lagu dilay maanta nin walba waa ka xanuunsan yahay maxaan ugu xanuunsaneen maalin walba sanadkii inta Falastiin lagu dilay tabanlaabkeeda ay Soomaali iska dishaa maxaan ugu xanuunsaneen dadka Soomaaliyeed oo ayaga islaamay soo inaan anaga gacanta isqabsano arrintaas ka hortagno jidkeena ma ahin arrinta waa inaan ka hortagno laba maxaa la yiraahdaa odayaalka beela dhaqameedka madaxda ka ah waxaan leeyahay sheeraha madaxdoodiyo noqda dad shariicada islaamka oo noqdo ummadda as madaxda ka tihiin ku dhaqankooda ka dhiga شريعة الإسلام كيدين الإسلام كدقمة كدقة خير بدنا إن رجينا وقت جينا وادا ماضي علماء يدينا سود ويانا أنا جاي مرة بحق لي سي بارك الله فيكم وحن سود وينا ولالكي شيخ محمد عبد أمل أو شيخني ومدن صومالية أيان سود وينا إنه كلمة دي سماشك جدي بارك الله فيكم. The Sheikh has welcomed a cleric known to all people in the country and the region. Sheikh Umar is on the way. His message is simple. Somalis maintain culture and unity, practice peace. He's paid recognition to the greater democratic space in Ethiopia that has allowed for communities to flourish and maintain their identity. And he has called on the leaders who are present here to fight for the downtrodden across the globe. Let us now give another round of applause to welcome Sheikh Umar. Sodao Sheikh. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه دمان مرتضى ماشى فرددا حفلتك السوق قلي روح والبا مجلسه هي مقام كيسو السلام يهي وقت قال لي سيي يما سامحاyo inaan hebel ilaahdo hayla waqtiga ay dhamaanba marka aan ka faa'iideysto inteeda yarta marka waa mahadsantihiin waana maalintihiin xafladu waxay u guntan tahay soo dhaweynta wabarka Umar Abdille aad baan ku soo dhaweynaynaa Kenya ku soo dhawow dadkaagii iyo eelkaagii dhexdooda ku soo dhawow dalkaaga ku soo dhawow aad baan ku soo dhaweynaynaa si wada jira inta kadib kulli wixii kale dadka kala dhihi doona laakiin waxa naga aadan anaga culimo ahaan marka la yiraahdo waxaan ku leenahay laba qodob saddex qodob qodobka koowaad waxa weeye sida la sheegay ba waxaad calaamad iyo ramsi u tahay nabadda kelimadaasi aad baan runtii u jeclaystay in aad ku dadaasho nabadeynta ummadda Soomaaliyeed iyo sidii la isugu keeni lahaa maanta dadka meesha fadhiya xafladda fadhiya sida la sheegay waa Soomaali oo idil waay bal Soomaali way ka baxsan tahay oo ummada kala jooga marka inta soo dhaw waxay u yimaadeen soo dhaweyntaada macnaheedu wax weeye reer kaliya ma matashida Soomaali oo dhan baad matashaa oo aad wabar iyo boqor u tahay
marka inaad maslaxada ummadda Soomaaliyeed guud ahaan hormuud ka noqoto ayaan kugula dardaarmaynaa ilaahayna kugu kaalmeeyo qodobka labaad ee aan jeclahay isagana inaan tilmaamo wax weeye maadaama aad hoggaan dhaqan tahay hoggaamada dhaqanka ummadda Soomaaliyeed ragga ugu magaweyn aad ka mid tahay dhaqankii Soomaaliyeed wax badan oo saxsan baa jira wax badanna waa khaldan yahay wixii khaldan sidii dib loogu sixi lahaa ayadana inaad hormuud u noqoto laana waxa weeye ummaddu diin bay leedahay waa dad muslimiina dhaqanka soo jireenka ah wixii saxsanna in la xoojiyo wixii khaldanna in dib loo saxo oo idinka hoggaanka dhaqanka aad dib u saxdaan waa muhiim waaye idinkoo kaashanaya culimada iyo aqoon-yahanka kaashanaya waxaa ka mid ah dhaqamadeena qaybo ka mid ah dumarkaa ku dulman waxaa ku dulman dadka tabarta dareen baa ku dulman marka dhaqamadeennii in dib loogu noqdo wixii khilaafsan shareecada laga saxo arrintaana waa kaa codsanaynaa insha allah inaad hormuud u noqoto waxaan ku gabagabeynayaa soo dhowow mar kale iyo mar saddexaad iyo mar afraad baa soo dhaweynaynaa Soomaali madaxdeedii culimadeedii hoggaankeedii dhaqanka rag iyo dumarba looma kala hadhin soo dhaweyntaada soo dhowow baan ku leenahay insha allahu tacaala la taliyayaashaada waan rajaynayaa inay ku jiraan dad culimo ah hadayna ku jirinna oo dhanka wixii diinta ku saabsan iyadana insha allahu tacaala taliya kaaga noqda aad baan kusoo dhaweynaynaa jazakumullahu khayr dhammaantiin waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu ومحسنتها الشيخ محمد شيخين وقدم بي أيام يرينا شيخ عبد الرزاق جير لو يقانا شيخ عبد الرزاق وحاربنا إنا أنت تجينو إن شاء الله شيخ محمد أدنا أنتو شيخ عبد الرزاق صوصعد وحنكون شيخينا قلت لي إنا يكملتها يودي نغمات علماء الدين ودي نغمات علماء الدين بوي كجران إن شاء الله قبل هذا سدح دوسو مالدا يدكتا وحا أفريا والشيخ محمد علي سونو شيغي نلا جوغا ambassador. So that was a special mention for Ambassador Yassin. Before the Sheikh speaks, Sheikh Umar had a message of unity, as you may have heard if you knew the language, and he also called for, he said, recognize the presence of the other leaders who are here, saying that is the result of the unity we've shown, and he also extended a very warm welcome to Wabar Abdillah Wabar Abdi. So thank you very much. Welcome, Sheikh. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا ليال إلهي با مهدسن مضون ونكسن متيستي إن لقم هذيو اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا والحمد لله على كل حال ونعوذ به من حال أهل النار ولا ليال إلهي ومهدسن مهدا بكذب ولا لدى مسلمين أو قلبت قوتا يسقوا ذيني بعد شكر الله تبارك وتعالى وكو شكرنا يرمضنا لو يري إيو أجيبتان كأن سو أجيبني إيو عمرتان كأن فدقا سو عمري صغير يا كبير نول بدرجة دي صالح رقي يا دمر تاجر إيو معلن شيخ إيو محيا هيدا شريف لما أنت بعد شكر الله تبارك وتعالى قوبت أن سو عمري وكو شكرنا بارك الله فيكم وحن سيجارة وسلام يا وبر عبد الله iyo wafdigiisa uu wato wabar soo dhawow dadkaagii iyo dalkaagii ku soo dhawow gacmo furan ku soo dhawow laab wanaagsan ku soo dhawow garab ku soo dhawow anigu wabarka lama dardaarmayo waa soo dhaweynaya jazakumullahu khayran waxaan codsanayaa Soomaalida wadankan degtaa waxay u badan tahay gobolka Northeastern county-yadiisa saddexda ah caasimadiisana ay hogaaminayso
waxaan rabaa wabarka sida halkan looga soo dhaweeyay si ka xoogan in looga soo dhaweeyo madaxdii oo General Maxamuud ugu sareeyo oo ugu odaygeeni yahay iyo maxay ahayd ay majority leader ki waa noo fadhiya haddaan ku deel qaafayna halayga raali noqdo wabarka intaanu qaadno aanu gaarisa geynayna insha Allah wabarku aqbal iyo ijaabo ilaahay waa siiyay intaanana ku filan ilaahayna subhanahu wa ta'ala waxaanu uga baryaynaa intiisa u hartayna ilaahay saantiisa saan ijaaba ilaahay nu ka yeelo wabillahi tawfiiq وما سنتهي الشيخ عبد الرزاق سيدي dhaqanka noola sheegay markay marti kula joogta dadka martida ala soora markaan inaga dhamaale Soomaaliya nahay waxaan la joog walaalahan Booran iyo Gabra waxaan u yeerayaa elders kama sultaanka Booran I will invite our brother the head of the Borana elders Golicha Galgalo 2 minutes please. Haya, tunamkaribisha mzee wa jamii wa Borana Golicha Galgalo, na kwa wale wakusikia, the Sheikh Abdirazak Jir has said Northeastern is welcoming Wabar Abdile Wabar Abdi, and he has asked our leaders to ensure he's given the warm welcome Garissa Wajir Mandera. Mzee Golicha, karibu. Assalamu alaikum. Bila kusema mimi sijui Kisomali, kwa hivyo utaniruhusu niseme na Kiswahili if you don't mind. Siku ya leo ni siku ya bwana Wabar Sodo. Waheshimiwa magavana wote walioko hapa, leader of majority wa bunge wetu, waheshimiwa za maseneta wote walioko hapa, waheshimiwa bunge wale walioko hapa, ambassadors wote walioko hapa, ikiwa najua wetu wa jirani wetu wa Ethiopia na wengine nasikia kama ya Djibouti pia hako, na wazee wote, general, commissioners, wanasiasa wote walioko, assalamu alaikum. Kwa mfupi ningelipenda kusema ya kwamba leo ni siku muhimu sana ya Northern, kwa vile jamii wetu wa Somali, clan ya Dogodia, king yao, sisi kama yetu tuita Abagada, ametualika na tumekutana zote na kujuana ni muhimu sana, na hiyo kwa sababu ya amani, umoja na mapendano. Na hiyo ni jambo moja muhimu sana ambaye inayotufaa jamii wetu wa Northern, ikiwa zote nikiongeza Kenya yote kwa jumla itakuwa muhimu sana, na tupate hiyo na tuatimize. Tushukuru mzee wetu, nasema asanteni, Mungu abariki, atuongoze pamoja, amani, umoja na upendo. Asanteni. Asante sana Haji Golicha. Nataka kualika ndugu yetu wa community wa Gabra, Haji Rago inshallah. Haji Rago. Karibu Haji. For members of the media, the gentleman who is left is Mzee Golicha of the Wabar Abdille Wabar Abdi, na wageni waliandamana na yeye, na magavana, wajumbe, mawaziri, masheikh na viongozi tabaka mbalimbali, na viongozi wetu wa mama, wafanye biashara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kwanza kabisa na washukuru jamii yetu wa Dogodia kwa heshima walipatia kingi yao, na watu wanatukaribisha hapa, na washukuru kabisa
jamii yetu wa Dogodia. Hiyo inakubalika kwa dini yetu ya Kiislamu, mtu akiheshimu kiongozi yao, hiyo inakubalika kwa dini yetu. Mimi kwa jina vile nimeitwa Mohamed Rago, ni mzee ya jamii ya Gabra. Nilikuja na viongozi wengi kutoka kwa hiyo jamii, wako wengi hapa kwa hii room. Kwanza kabisa nawapatia apology ya CS yetu Ukur Yatani. Angekuwa na sisi hapa, lakini alienda kazi ya serikali ya ghafla. Alituambia kama wazee yake na Madam Gumato pia hako hapa, nafikiri atasalamia Waber bali haraka. Asante sana Madam Gumato, asante. Kwa hivyo sisi kama jamii ya Gabra ama wafugaji kwa jumla, Wabar Abdille si wa Dogodia peke yake, na wafugaji wote. Na tunafurahi tumesikia anakuja kwa mambo ya usalama, ya mambo ya boda, na hiyo mambo ni mambo muhimu. Anatuletea tabu kila wakati wafugaji. Nafikiri hiyo ni mambo muhimu, tutakuwa pamoja. Nafikiri atatupatia mawaida, sio jamii ya Dogodia peke yake, kwa wafugaji yote. Kwa hivyo karibu sana, Mungu awabariki, tutakuwa pamoja. Tunakaribisha kwa boma huko, kuna wazee yetu wanakaa namna hiyo, wazee ya Gabra naitwa Dabela. Kwa hivyo tunakaribisha siku moja asherehekee na siku ya bario. Mungu awabariki. Asante sana mzee. Waxaan la joogo walaalaheen safiiriinta ka imaaday wadamaha noo dhow oo ayagana marti noo ah oo qaarkood rabaan arrimo degdeg looga baahan yahay. beelaha suldaamintooda waan ka hormarinayna adinkoo raalli ah. marka ugu horeysa waxaan u yeerayaa safiirka Soomaaliya walaalkeen Maxamed Nuur, waxaan nooga xigsin doono wasiirka Ethiopia Meles Alem. Safir Meles Alem, sorry. We will invite you right after Ambassador Mohamed Noor. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله. إلهي بقى محادث كله انتنا نودن سوق هاي كان هالكان حنكون أحسننا هنا كسوق قريب قلنا جوجشان وناكسن إبراكيسن وسو دوينا هيو وبر عبد الله وحبان إذا كلا سو دوينا حامو قطعين ويهي نين كراميسن sababta ummadaan oo dhan haday jeclaatay waxa muuqatay inuu karaamaysan yahay. Ilaahay baa karaamay marka qofka inay dadku jeclaadaan. waxaan rajaynaynaa ummadeena Soomaalidu inaan wax ka baranno dhaqankii hadda la sheegayay ee habkay u dhaqmayeen maamulka Dagoodiga iyo boqortooyadoodu, in ay kuweena dhaqankana ee dagaaladii ay fidneeyeen oo ka baxay dhaqankii suubanaa, in ay darsi u noqoto habka dhaqanka u maamulo dadka. waayo dhaqanka ummaddu hadday dhaqanka ka dunto waa dumaysaa. dhaqanka ayaa ummadda isku haya. waxa dagaaladeennu u dheeraadeen waxa way dhaqankii baa naga dumay. waxaan rajaynaynaa marka wabarka inuusan ku ekaanin Kenya iyo Ethiopia, in uu tago Soomaaliyana tago. sababtoo ah dad badan oo Dagoodi ayaa degan iyo Sarsoor. marka hadduu ku ekaado halkan Kenya iyo Ethiopia, dadkaas waxay u ekaanayaan dad leeyahay Sarsoor ma tihiin ama se Dagoodi ma tihiin. marka wabarka waxaan ka codsanaynaa inuu meesha tago, uu soo salaamo sida inta loogu soo dhaweeyay ka xooggan baa loogu soo dhaweyn doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo. waliba wasiirkii dhaqaalaha noo joogo oo asagu ah Dagoodi wasiir ku xigeenka maaliyadda Soomaaliya waa kana loo. marka waxyaabo badan oo lagaga daysadaad leedahay.
waxaan rajaynaynaa dhaqanka soomaalidoo dhan in uu siyaasadda faraha kala baxo in uu ku ekaado duco iyo ummadda inuu isku hayo iyo nabadda iyo midnimadeeda inay ku ekaadaan haddayna dhicintaasi ummaddooduna waa burburaysaa dadkooduna waa kala tegahayaa markay doorashada u kala eexdaan oo ay mid sharaxaan mid kalena ay diidaan waa dhibaato weeye boqorkan waxaa ka muuqata dadkiisii intaan arkahayay muusan hadlayn waan ag fadhiyey ma hadlaynin kuwaana haddaad arki lahaydaan hadalka ayakaa meesha qabsan lahaa marka darsi bay u noqonaysaa wabar noo tag waddankii soomaaliya noo tag waxaan hubaa inaad darsi ay kaa baranay adoon la hadlin habkaad u fadhidid habkaad wax u dhagaysanaysid habka systemkaaga ku dhisan yahay darsi bay kaa badanaysaa marka waa soo dhaweynayna waa idinla soo dhaweynayna aad baa mahadsantii walaalayaal Thank you. That has been for the Kenyan media. That is the Ambassador of the Federal Republic of Somalia, Mohammed Noor. Ladies and gentlemen, let us welcome Wabar Abdille. Wabar Abdi comes from Ethiopia, and the Ethiopian government has played a pivotal role in facilitating this historic visit. It is my pleasure to welcome His Excellency the Ambassador of Ethiopia, Ambassador Meles Alem. Welcome, His Excellency. Assalamu alaikum. The moderator was saying, Wazir. I am Safir wa Ethiopia to Kenya. Wabar Abdille, who is a symbol of peace and unity of the Digodia community, majority leader, my brother and friend, Adan Duale, ambassadors from Somalia, Djibouti, and former ambassadors from Kenya, MPs, governors, businessmen, businesswomen, walalayan. Let me at the outset bring the greetings of His Excellency Dr. Abiy Ahmed Ali, Prime Minister of the Federal Democratic Republic of Ethiopia. Wabar Abdille, Wabar Abdi, Excellencies, friends, I am extremely delighted to be with you today to attend the welcoming ceremony of the great leader and king of the Digodia community. The Digodia community, across the board, across our border lines, in Ethiopia, Kenya, are one families. That's why we always say the people of East Africa are just same people living in different countries. If you bring somebody out of the region, you think that he can identify who's an Ethiopian, who's a Somali, who's Kenyan, or Djibouti? Never at all. The imaginary line between our sister countries is just imaginary, as its name implies. We are one people. I always tell my Kenyan colleagues, Ethiopia and Kenya are not neighbors. Why neighbors? We are siblings of the same family. In fact,
the fraternal, strong partnership between countries in the region is further cemented by the same people that each one of us have together. You have the Borana, both in Ethiopia, in Kenya, with their spiritual Bagada in Ethiopia. You have now the Rigodia, the king from Ethiopia. You name it. We are one and the same people. And the people along our common border have played pivotal role in deepening the ties between our two countries, in deepening the ties among countries in the region. That's why His Excellency the Prime Minister Dr. Abiy Ahmed, in his new book, which we call it Maddamer, Honorable Adam Duale was our guest of honor last week. The very principle of Maddamer, which literally is translated as synergy, is bringing people together. So Wabar Abdi has brought us, all of us, together. The foreign policy of Ethiopia focuses not on very far countries which are strong partners. You name those countries. But we focus in our neighbors. And that's why we call it a neighborhood center foreign policy. The Prime Minister advocates regional integrations. But this regional integrations is further reinvigorated by leaders such as Wabar Abdi, Wabar Abdi. This is a big lesson for politicians. You can't preach regional integrations from your capitals. Politicians, we the politicians, we have to use the spiritual leaders, the religious leaders, the elders of our people, such as Wabar Abdi, Wabar Abdi. It's my hope he will enjoy this magical country, Kenya. Or Abdullah, this is an amazing country. We would like him to feel at home. The Prime Minister is closely following his visit. We hope you will have a wonderful stay. Asanteni sana. Sadaho. Thank you. Thank you very much. That has been, for the media, write it down in your notebooks, Ambassador Meles Alem, the Ethiopian ambassador to Kenya. We have the honor of welcoming a diplomat from a far-flung part of the Horn of Africa, the ambassador of Djibouti, His Excellency Ambassador Yassin. Let's give him a warm welcome. اللهم صل على سيدنا محمد. halkan waxaan ka salaamayaa madax halkan isugu timid iyo shacbiga isugu yimid halkan si ay u soo dhaweeyaan Wabar Abdillaahi Cabdi. waxaan halkan mahadnaq uga celinayaa ragii saaxiibada ay soo casumay si aan ula soo dhaweeyo Wabar Abdillaahi Cabdi. Wabar Abdi Raliyaw waxaan alleehay Wabar Abdillaahi Cabdi soo dhawow. waxaan jeclaystay inaan halka ka heraho kolkii aan dhageystay sida loo soo xulo loo doorto wabarka sida ma garanaysaa uu yahay wabarka reerka quraatay uu yahay waan iska xarkay waxaan iskaga dhaxarkaan waxaan ka dhashay beesha Ciise yaa ka dhashay waxaan ka arkay dhaqankii yaa ka arkay waxaan kaga duwanahay Soomaalida kale waxa weeyaan
تعلنا هاي إنه كنا وبرك قرأت الليدين هذا دودتي أنا كنا حساب أنا وحلنا صباح قرأ وحلنا هاي وقاس قرأت علينا فإذا دولية نوويا كل هذا أبو قرأت اللي هي كل هذا طبعا أبو اللي شو مدمع كل هذا أبو قرأت اللي ثلاث قرأت اللي كل هذا طبعا اللي هي طبعا ثلاث اللي باش الدقودية دوانكو أمانة يا دبهان دقك إليهن وإليهن دقك وارسكبت بانهاي وصدا بانو أمانة يا لكن سوى واحد ونكسر وواحد كبت بعدين دبعت بدن ودبك الصومالي ذا صومر أنا المرين كل كعبليدهن أبو قرات أباهنا وياو كقرات يسكو كان كره وهر سادة ومدي نبض Aha, shukran. That has been the ambassador of Djibouti, Ambassador Yassin. We can't finish the list of ambassadors before coming back home to a man who's represented this country, not as a member of parliament only, but as an ambassador, who is now currently the special envoy to the United Nations High Commissioner for Refugees, Special Envoy Horn of Africa, His Excellency Ambassador Mohamed Afe. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. waxaan rabaa inaan codkayda ku dara mujtamaca meeshaan maanta iskugu imaaday oo bah iyo boqor leh oo soo dhaweynaya wawar cabdille wawar cabdi anigu wabarka sanadkan bisha labaad sanadkan hadda aan ku jirna ayaa waxaan ku soo booqday magaalo la yiraahaa boqol maayo anigoo wafdi hogaaminaya waxaan rabaa inaan u sheego ummadda meeshan maanta joogta wabarka runtii waxaa ku sifoobay inuu yahay wabar Soomaaliyeed waa oday Soomaaliyeed deegaanka hadda aniga aan tagay oo Liban zone la yiraahdo Ethiopia waxaa ku nool in ka badan 300 oo kun oo Soomaali ah oo halka qaxootinimo u tagay halka markay tageenna waa la soo dhaweeyay hadda deegaanka aad tagto inay qaxooti yihiin inay degaan yihiin ma kala garanaysid arrintaas fadligeeda waxa iska leh boqorka iyo odayaasha deegaankaas hogaamiya aad iyo aad ayaa runtii u soo dhaweynaynaa waxaan ku faraxsanahay maanta inaad halkan Nairobi nala joogto walaalahay qaban qaabiyay xafladan aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa maxaa yeelay culeys annagoo idin aan qaadi lahayn ayay iga qaadeen boqorka aniga waa u tagay wuu ii soo duceeyay magaalo wajaar la yiraahdo aniga boqorka og yahay wabarkan u sheegay inaan ka imaado marka saaxiibadeyda reer wajaar waxaan u sheegay waxaan oranayay idinka wabarka miina akin aniga soo salaamay gacanta ku salaamay waa marka intiina asaga inay garataan in barakaysta waxaan arkay macallin Ibrahim oo la 72 sano jira wabarkan hadda igu horeysay waxaan wabarkan kaaga horeeyay laakiin hadda waa wada simanahay marka kaftanka uga dhamaanaya waxay maadaama wabarku la soo dhax fariistay waa wada simanahay aad iyo aad kaga mahadcelinaa hadii aan magaca hay'adda UN ta ku hadlayo aad iyo aad kaga mahadcelinaa soo dhaweynta walaalaha aad siistay oo runtii aan rajo u abuurtay dadka halka jooga waa la sheekaysta waan ogahay waxaana ku faraxsanahay runtii waqti aad ku soo beegtay booqashada waqti uu roob noo da'aya oo baraka aan leenahay oo siyaasana aynu socodin waxaan ogahay haddii waqti siyaasad aad imaan lahayd niman meeshaan ogahay saaxiibada hadda qol kugu xirtaan waa wabarka aan soo salaam adeeda xigta wabarku xanuunsan yahay dalkuuga ilaa ay doorashada markay dhacdo kadib waxaa laga ilaa dhawaar kadib haddaan soo fasaxaynaa laakiin hadda maadaama xiisada ay jirin wabar aad iyo aad ku soo dhaweynaynaa waan ku faraxsanahay inaan soo booqatay runtii waxaa tahay wabar Soomaaliyeed soo dhawaaw Kenya ku soo dhawaaw waada mahadsantahay booqashada waa mahadsantahay Ambassador Mohamed waxaan rabaa inaan soo dhaweeyo ambassadayaalka saddexda mas afartan oo ahda shikriima waxaa kaloo nala jooga Ambassador Ruqiya
ambassador ruqya ayaa nala joogto insha allah ayadana dadkii meeshan hoostegarayna uguma tirigelin inay hadlaan laakiin inaan aqoonsano joogisteeda muhiim weeyaan waxaa kaloo soo dhaweynayaa our deputy former speaker Farax Macalin waxaan soo dhaweynaynaa walaasheen Faaduma Geedi oo ayadana hadda noo imaatay waxaan toos u gadagalaynaa insha allah. For English, let me just repeat the special recognition of the guests who've arrived. Special recognition to another ambassador who you may not have noted the presence, Ambassador Dr. Ruqya Subo. Welcome, feel very much at home. We also welcome Wajir Women Representative Fatuma Gedi is in the house here, Karibu Sana. And then we also recognize former Deputy Speaker Farah Maalim, legislator of many years and a Horn of Africanist, who's kept Twitter debate alive about these regional issues, a face of this place. Honorable Farah Maalim, we recognize your presence. Thank you. waxaan rabaa howlihii beelooyinka inaan galno waqti ma haysano walaalahan waxaan ka codsanaynaa daqiiqad marka hore waxaan idin siinay 2-3 daqiiqo saddex ayaan ugu yeeri doonaa insha allah markii aad qof hadlo insha allah isdiyaari waxaan rabaa walaalkeen Cabdullaahi Tabliiq oo beesha Isaaq inuu noo imaado waxaa ku xigi doono walaalkeen Suldaan Cabdiraxmaan Suldaan Ololdiin oo ajuuraan ah waxaa ku xigi doono Chairman Ali Noor Garre Council of Elders insha allah. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبر عبد الله ور عبدي ورتدي سلا سعوتا مدحنا كينيا وما ركت محاهدي نول با مجلسا يحل كيسا كما مسيحي انت ما كان كجدبو وبر يقول تدادا وهذا أدبا نجين سو دويلنا وإنكم فرحسنا هاي وبركة بركاتي سو حكمنا ما تقدر أن يسوء إمام بأسوء ذي وإحنا يا إمام ما جبته وحللي Somali وكل ما إمام بورا باينوي ضد أردن ستي عم بومي مدين تاسانا ما ركت هذه اللعبة هي مدة عن قدرة يا واحد سهي ayaa berigii hore Soomaalidu waxyaalahay ku ciloobi jirtay geelay kala dhici jireen oo qabiil hoosta kaga jiray geelii waa laga soo gudbay imika siyaasad qabiil hoosta kaga jira lagu yar cilooba taana in la yar dhimo oo maaragtay maxaa hayday siyaasadda colaadeeda la yareeyo oo waa kursi kaas lagu dagaalamaya kii hela mooyaane kii kale aanu ku colaadina colaadana la dhimo waxyaalaha lagu midoobaya waxa kamida waa diinta islaamka oo sidoo sheekhu inoo akhriyay aayadii quraanka ahayd ee ahayd wa'tasimu bihablillahi jamii'an inaan xariga ilaahay wada qabsano oo aan midoobno waxa kaloo ina midaynaya arrintan wabarka oo aad arkaysaan inta isugu keentay maanta inay aad iyo aad maaragtay maxay u fiican tahay dhaqanka waa inaan xoojinaa diintana waa inaan xoojinaa midnimadeena waa inaan xoojinaa waxaan maaragtay u rajaynayaa wabarka in ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay shaqada uu socdo uu barakeeyo kenyana ku soo dhawow meel walbana ku soo dhawow wabar aad baad u mahadsantahay wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waa mahadsantahay Cabdullaahi wabarkeena ajuuraan Suldaan Cabdiraxmaan بسم الله الرحمن الرحيم لما أنت مسؤول شربت له نفس الكلام وحول جاي كتير والقايته تسوي كتير بس التوياشة صلاحينها المؤذنك مروا الواقع ولما الدين كان مرين يا لما الدين لما أنت من سلام سلام عليك الدين ولا الدين
sharaf ugu tahay maantay inaan halkan ku soo dhaweeyo isaga oo boqorkii ahaa Soomaaliyeed ma aha boqor hajoodi ma waa wabar Soomaaliya oo dhan waxaan aad ugu faraxsanahay inta sano oo awowgiis ka awowgu ahaa boqor ayo maxaa dhahdaa wabar أنا وافان يا أن كل سنة أنا هاي سلطان. لقى صوب الله كون يا لبا بقول يا كنتم إلى تضرب بقول أي سوق قارن بقولتوي أجوران مناسب حتى ما هينا ماشي أنا كشاكي مرة بقول كمناسبة سامان تكاد لنا لكن وحن برا يا إن بدل أو اللي يرى جيل يتجو وين وركني هنا مو نيجا نمبر وانس برا nimankan uu wabarka u yahay Soomaalida oo dhan annagana sidoo kale salaadiin iyo imaam ayaanu ahayn waana walaalaha anaga ahayn weligood walaalaan anaga iyo dagoodii iyo boqoradan dagoodiha walaal baanu ahayn ilaa haddana walaalaan nahay wabarka waxaan ka baryaa inuu noo duceeyo inuu nabadan horseedo in ummadda madaxda uu ka yahayna diinta ay wax lagu maamulo diinta oo muslimka aan lagu maamulo anna sidoo kale aan ballan qaadaya diin muslim in wax lagu maamulo waana idin samaynaa wadanaadkii lagu kalaamo waa mahadsan tahay Sultan Cabdiraxmaan Chairman Ali Nuur ma jooga Garre community Chairman Sheekh Ali waxaa ku xiga beesha xawaale beesha hawiye beesha mariixaan beesha murule saas ay isugu xigaan walaalayaal waqtigii aan ugu soo gaabtay adinkoo raalli aan dedejina daqiiqad ayaan ugu samaynaynaa insha allah بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤالي وحي تري هذا المدى هنا لي دي وحي أفوان لها ودوا على بعض كليا إن وبركين سلامو سيفويك ونأكثر هذا اللي شيء ميزانكي سآخرين إلهي وجوده يا إلهي وبريء حتى وجوه الرئيسة جدي لي ماضي يودت كان كما كان ونأكثر حفلة النصر بعد ما هذا إلينا بعد الله أنت صلي هاي كليا وحان وبركة يجود جيس يدخل عليه نصر من حفلة ونأكثر شرف له قبلها منديرا عذردار بو معركة صوت برصدي أبولوجي سفر بو بحي درب بو سفر بحي وحيري وبركة صوت دوية كيف قالا إن شاء الله وصوت دوية تار الضمبنا وكيف قادنا يا ويري مركة تاسر واديك قدوم ميسا مركة وقتي كما دومين أيو ولا عليه يجدقودي ما هو مهد علينا يا أودي جي إنه إلهي ميزان كيس آخره إلهي وجوده يعني وراك فرا بدن اللي بيشيء جيو يعني إلهي وجود بريئة ماذا هذا الكيك ما قال يكره ماذا فرا بدن ولا دقيقة قليلة قوانيان يوم ماذا نوع والباء والدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما تنتهي زي علي وعن ربع بيش حوالي الشيخ بشير ونلجو هنا وديبة يبيلها كلامية إن شاء الله ديار نقود السيدي ولا كان عمل دقيقة هنكلمني إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله. لما غفروا مصر كإيماش وكفر لسان السلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعد وبر عبد الله وذر عبدي يقول سود هذا الليل سود هذا الحمد لله كل أنتم شهداء في الأرض آياته سيد حديثك يا هاي مرقاته waxaa laga wada kacay inuu magac fiican iyo mansab fiican ilaahay ku dhiibay oo Soomaali iyo bini aadamku dhan aad u tahay marka sidaas awgeed ilaahay ha kula garab galo taasaan kuugu duceynaynaa waxa kale oo weheliya beelaha Soomaaliyeed markaan u soo daadego wax naga fac weyn xagga duubka markii la yiraahdo insaha ka jira safiirka hadda sheegayay ma garatay 21 kii 21 aan oo duuban marka waxaan jecelahay dhaqankaas aad u wanaagsan yahay xagga dhaqanka
in lagu wada dadaalo soomaalida qoladii lahuna way leedahay qoladii aan lahayni inay ku dadaalaan intaasaan muxuu handheen leeyahay inta kale wabarka haddii uu waqti u helo inaan meeshii cidda u badneed aan geyno diyaar aan u nahay oo hiiraan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu beesha sheekhaal walaalkeen daahir sheekh hadduu joogo waxaan kusoo xujinaa walaalaheen kale oon u yeeri doono insha allah inaad stageka imaataan hawiye imaam yaasiin imaam cumar mariixaan suldaan koosar haddii aad halkaan imaan kartaan I just want to really require the patience of our media. These are protocols we have to observe. These are leaders from different parts of the Horn of Africa, different communities. Please bear with us. Our sound bites are coming in. Our local leaders, our legislators are soon after this. Tuvumilie kidogo. Haji Dahir Sheikh. الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين marka hore mahadcelin iyo hadal fara badan waan soo maray sidii ragga hore xukuumad iyo madax kaleba ay u mahadceliyeen baan u mahadcelinayaa marka labaad boqorka ama wabarka wax dadka aan dheerahay baa jiro oo aan halkaan ka sheegaya boqorka afkay wey noo ku hadlay afka beesha sade boqorka aftigay weeye waa boqorka doodiyaha kale hurdaan u baahan marka boqorka waxaan leeyahay dadka inuu aftiga yahay soo dhawow baan leeyahay anoo ku hadlaya afka beesha sare war cabdi waa soo dhawaanaya aftigay waqtiga waa yar yahay maadaama la codsaday aftiyaashay iyo habreelayaalkayba ay codsadeen inaan waqtiga soo koobo waa soo dhaweynayaa boqorka waa soo dhaweynaya afti soo dhawow waxaan soo dhaweynayaa suldaanka beesha marolo waa taqaaniin aan u malaynaa musee maxamuud khaliif بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ولا ماشي سكوي ماضي مقع كستا إما نركز إليه وإمادي شرفتا ولا الكاين وبر عبد الله وبر عبدو إمادي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا نبي سلام يا سلام بعدي وبر وصول واو أنا محمود خليفاني إلى السودان محمود خليفاني إلى بيش مرلاكي ماضي أما بقولنا أنا عارف عن هالمانك الوجود أيضا رجلا يوصل دراني سديد هذا جوانا مرينا صدقني لبعضهم إستيد سميع من هذا جوا إستوى هيد رجلا يوصل دراني كتابه القرآن واقع السنة إمام داين ماش واقع السنة ما تنوع وغنا ووهن عادوا لهن وهمها يعني هذا البلاد إماها ماشى الحديث صار يساك ترى القرآن كه زمزم كه ترى القرآن كل شيء سبك ترى القرآن كل شيء سبك كل شيء سبك ترى القرآن For our special guest, this is a presentation of a gift. As you can see there, copies of the Holy Quran being given to Wabar Abdillah. Wabar Abdi from the Sultan of the Murulis brought some traditional and religious gifts. marka jawaabka waxa waaye jawaabka isku heewaa xaqiiqada annaga laba iyo toban waraaq soo maray oo dhammaan marka la duuba cadaan oo laba wadooleeyay oo tagi jirnay meesha taraa quraanka ay jirnay caanaha waxa uu shubi jirnay ma aha waxaan hadda bilaawday ma aha saas aan u yahay kitaabaha quraanka sidaas aan u keenay wabaro uu noo soo dhawaa aad baan ugu faraxsanahay walaalihii ku yeero walaalahayna aad iyo aad aan ugu faraxsanahay weyntaadu ay haddana ku kulmeen soomaalida maan ay ku kulmeen aad iyo aad aan ugu faraxsanahay إن شاء الله إلهي تسدى يكون نقطة ماشي أن الورد وقولنا ما يستنكر معها وحيانا بدنا نصنع مدن تهاي وحيانا بدنا نصنع قباتي إلى الشيخنا هقبل ولانا وحاجتي أبي قريت هالو بدورنين وبر عبد الله اسمناي
labaatan iyo laba sano kaloota annaga ciddaan ku dhex jiro yar agoomaan noqon annaga ciddaan reer aabbahay nooma rooneen agoomaan noqon laakiin marka anigu duubay aabbaan yeelanay wanaag baan helnay meelaan u cararnaan helnay meelaan wax u sheegnaan helnay bahya waa duunay joogtaa saas taqaana laakiin ani hadda markaas imaaday tolka waad sintay sidaas iyo sidaasaad ogadaysaa waaka dushaas iga taabanaya waxaad leeyahay taariikhdu waa ka akrinay meelaan ku akrin doonaa jirta insha allahu hadda mawjeera u socota madaan socostaaba gurigaan kuugu imaan doonaa soo dhawaaw hadida inayna waa midaan keeni jirnay kitaabahan adag war kitaabahan iyo imaamtii koofida iyo usha waatiin keeni jirnay ku soo dhawaaw kenya ku soo dhawaaw walaalaha ku soo dhawaaw jazaakum allahu khayr dadka martiqaadka suugada waa dayman xidna asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu وأحسنتي سلطان محمود وحن ربا إن سودوية أمان ويرو سلطان وجير شبتاق وجير أوغادين أحمد حسين وحان سودي جنايا ونربا إلى إستماعات أيقنا ولا عليهم بيش مدلوك ما chairman أنا ليه ولكن أحمد حسين رالي هذا اللي قفه chairman سبريم chairman وجيه وحنا وين ويرا بيش مدلوك ولكن إمام ياسين عمر هداين وير ومن الجيدو هذا قف كانوا وهلا جوجنا ونكسنت هدو جوجين وعكنا ويرا يا بيش باري عبد الله يا ويرا يا قلنا هديات جوجتان هل كان نوبي ماذا بسم الله الرحمن الرحيم مركو هو الرئيس جعل هاي المسؤول وبركة والحمد لله on شيء الرواء in a special relationship لا هاي محاوى عي مركي وبركة هو الرئيس لطوبي مركو سوى حجينا هاي وحائس راحين وبر سورين وبر صالح وبركة مكاهيل marka ilaa iyo waqtigaas xiriirka ugu jiray haddana ugu jira marka walaalow soo dhawaaw waxaan ku faraxsanahay sida aad isugu keentay Soomaalida ma jirto waqti Soomaalida maanta halka fadhido iyo dadka kale ee nala jooga ay sida meel intay isugu imaadeen ayagoo faraxsan oo kulligood isku si wax aga fikiraya marka waxaan leeyahay warow soo dhawaaw waan ku duceynaynaa adna noo ducee dadkana midayta والسلام عليكم ورحمة الله. باشا بعد عادي ولكن عبد الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد waxaan u mahadcelinayaa beesha sarsoor gaar ahaan beesha dagoodiye ee xafladan dhigtay una dhigtay wabar cabdulle wabar cabdi aad ayaan ugu faraxsanahay soo dhaweynta lagula soo dhaweeyey inaan maaragta xafladiisa ka soo qayb galno anigoo ku hadlaya beesha maxaa la dhahay baadacaddo wabar cabdulle wabar cabdi waxaan leeyahay kusoo dhawow waddanka Kenya anigoo mas'uulka gaariyada beesha baadacadde waxaan ku leeyahay muxuu ahayey wabar jira ilaahay ha kaa dhigo sida la tilmaamay waxaa ka muuqata maaragtay in aad maaragtay burhaan aad leedahay burhaantaasna waxay ka timid sida lay sheegay inaad tahay qof maaragtay maxay ahayd dhowrsan wabarrada hadda maanta jiro wabarka ugu dhowrsan inuu ilaahay kaa dhigay waxaana rajaynayaa sida lagu ammaanay إلهي وكان وذكر فإن ذكر تنفع المؤمنين القرآن وحينا إن كسي داش ما أدي إلهي قال لي قال له أمة الصومالية قال لي أي نقول وحنا رجينا سيد الله ولا شيء إن نقولش وبر صومالية وما هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحاوي سلطانك مدلوت إمام ياسين إمام عمر waxaa kaloo ka codsanayaa walaalaheen harti macalin xasan guuleed hadduu joogo horeha noo imaada waxaa kaloo codsanayaa inuu noo imaada walaalaheen dirta ugaas ibraahim cabdulaahi
الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد dhammaan marti sharafta ka soo qayb gashay xafladan lagu soo dhaweynayo wabar cabdille wabar cabdi aad iyo waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacda salaam anigoo ku hadlaaya magaca beelooyinta hawiye waxaan aad iyo aad u soo dhaweynaynaa wabar cabdi ayaan aad u soo dhaweynaynaa insha allahu tacaala dhaqanku sidiisa qabaa'ilka qabiil walba waxaa waaye dhaqanka ayaa astaan u ah wabarka waxaan u jeedinaynaa ilaahay haduudha insha allahu tacaala ku dhaqanka shareecada islaamka ilaahay haduudha insha allahu tacaala iyo dhaqanka wanaagsan in lagu dadaalo ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku yidhi nabiyullaahi maxamed asigoo la hadlaayo fabima raxmatin min allahi linka lahum walow kunta fadan galiida alqalb lam faduu min xawlik waxaan rajaynaynaa dadku waxaa waaye markii hoggaan loo yahay dad kala duwan wax kala duwan oo dhan aad arkay insha allahu tacaala intaas oo dhan inuu ku sabro ayaan insha allahu tacaala u jeedinaynaa waxaan kaloon leenahay nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi maa min zamaanin ilaa wamaa bacdahu ashad taariikhda laga soo sheekeeyey oo maanta oo dhan halkaan noogala akrinaayo oo wabarkatiisa iyo xaaladii hore iyo xaaladdaana waa aad bay u kala duwan tahay marka wabarka waxaan leenahay annaga insha allahu tacaala waxaan naqaanaa waxa la yidhaha shir arrinan layska asmacay anaa iriya waa arkay aradoo ashtagotayo station joogta waa arkay umulan soo araasiyeyno ibiiq la to ah waa arkay wixii xilliga hore la arki jira hadda lama arkay insha allahu tacaala wabar waxaan leenahay soo dhawaad ayaan leenahay insha allahu tacaala معلم حسن قولت مجوغا معلم حسن قولت سعيد علي اوكي بس انا وقت ما يسرنا وقاس ابراهيم عبد الله هرتي اميدر اوكي مركان وحي حتى قبل اودو waxaan rabaa inaan mas'uuliyadda wareejiyo ilaa muddo yar oo aanan ku soo laaban doono anigu waxaan ku wareejinayaa muhashimiwa cabdiqaadir maxamed haye waxaa la dhahay meelooyinka qaarkood ayaan hilmaanay naga raalli ahaada kas u yeel ma aha haddii aan hilmaamnay oo magacyahaan sheegaan ku jirin hilmaan waxba kuma jirto soo maha marka waxaan rabaa inaan walaalkeen u yeedho وأنا عبد الله وكها الله يا مع باشا جريد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله ما أنت وحافر حولي نوع إن عن كذا قصة قيد الله حفظ قروح الغدن عن كسر وين إنه وبركنا وبرعبد الله وبرعبدي وأنا لسه بغري ما في الوطن في تركيا كارهان قبل هذا الليبان مرفوض حالنا وبرعبد سوء دواو وحاطه وبركايي سيدا هو شيرين حديث قبل صومالي بقى waxaana ka muuqata in xariijinayso maanta fadhiga aan fadhino Soomaaliya oo kala maqan iyo waliba qowmiyaha walaalaha aan haysan aan nahay marka aad fiiriso Soomaaliya geeska Djibouti ilaa Ethiopia maanta wax ka maqan ma lahan halkaas waxa ka muuqanaysa inaad tahay wabar boqor Soomaaliyeed oo aad tahay udubtii isku taagay Soomaaliya ma isku xiriirsay insha Allah waxaan ku ilaahay ka baryaynaa in uu ilaahay ma fi ku garab galo xilka asaga oo adag هكذا كسي ودي ما في سحيك أمة الصومالية حقيقة وحكى لي مرة دغن دين وقال وحكسر وهل أمة وأبي هو يكتب عليه ذلك إن شاء الله سود وأكفر أحسن هاي وحان كلهم هذا علنا هي ذلك شرفت بدن قبلها فراغ شرفت بدن سود وين تقول بدن سبيه وبركة ما في شدة قيامها بأسر وين إن شاء الله أيها ما حد يمريه وحان كلهم هذا مدن صومالي وأنت ما تمجد كفورنتي له ورمضة سياسيينتا ما في أبويا هذا كان عسكرة دمرك ما شاء الله أديك ما سنتين إن شاء الله وبرعاد ديلو سود واو لكاي وراها دكاي وكوحي صدبية وجوا ما إن شاء الله سود والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله إنت كلا أما هالمامني أما أنليست دنوجرن هدي أي جوجان رالي هذا
walaalihiin kale aan idiin hadli insha allahu haddana si rasmi waxaan ugu wareejinayaa walaalkeen Mheshimiwa Abdiqaadir. For our media diplomats and other guests, Abdiqaadir Mohammed is Assalamu taking alaikum. over the program. Our speeches are starting. Media. Thank you very much. So the rest of the program, Ingris and Kubilao, Madama and national media, they're not Jogan or Ubahan Ruti, message in Odayashan, Duale, your governors, your MPs, Kerk Fahman, but they will have Kuma Mulidon after Ingris, Swahili, but in Somali and Mailudon, inshallah. هذا ما تنتين مقاعد وعبد القادر وحلقة من كينيا وحاليا عبد القادر محمد القصة عبد القادر حسين محمد له رجل كسومالي دكتور عبد القادر لو يعني يقنا مركز سياسيين كان بين هدول إلى هنا مركز رأت بعد ما تنتين هنتي ونوتم قالتين وقت دير بعد فردين بعد ما تنتين وحان سينيا فرصة حبناها لقصة دوتي بارمانكا. We'll start with members of parliament. Really, it is token. We'll give one or two because of where we are in terms of time. We'll give one or two senators. We'll give all the governors and deputy governor for Mandera. And we'll not forget our sisters. We'll give two of them. I will start with the Honorable Arbele of Leisams. Mheshimiwa, as you make your way, Nigawanin Barlamanka Rendi. Rendi Somali Roma Awan, Mheshimiwa Arbele Hafuri Dono. الحمد لله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kwa majina mimi naitwa Mwalimu Arbele na mimi ni mjumbe wa Leisamis constituency na nimefurahi sana kuungana na ndugu yetu Wabar kutoka Ethiopia. Yangu ni kuleta salamu ya Warendile kwa sababu mimi nasimamia jamii inaitwa Rendile, lakini kila mara nikipata fursa ya kujieleza mimi ni nani kwa ndugu zangu wa Somali, mara moja wanasema inengan Rendidwai, lakini mimi naeleza hawa aniga Rendid maya aniga Rendonwai. Kwa sababu ningependa, umesikia Waborana hapa wakisema ya kwamba hawa wako na kiongozi yao huko Ethiopia anaitwa Bagada. Mumesikia hata gavana wakisema ya kwamba wako na kiongozi yao pande ile, sivyo? Warendile, ndugu zangu Waislamu wa Somali, mimi nawaeleza ya kwamba sisi tuko ndani ya Togodia. Sisi ni familia ya Wasomali. Lakini ningependa kueleza king yetu ambaye amekuja leo ya kwamba wakati imefika Wasomali watafute mandugu zao ambaye wamebandikwa jina ya Rerdi. Sisi hapana Rerdi, sisi ni Rerdon na tunapatikana hapa Leisamis Korido ndani ya Mapete County. Kama Waborana ikifika wakati ya kiangazi wanakimbilia king yao na Magabra wanakimbilia king yao, Warendile watakimbilia nani? Sasa tumepata king yetu kutoka leo, na sisi Warendile msukosuko ikifika kutoka leo, sisi king yetu iko pande gani? Ni Wabar. Huyu amefika leo. Na kuliko wa Somali napeleke Garissa peke yake, kuliko nyinyi napeleke Garissa iko amani ama namna gani? Mupeleke Leisamis constituency aone ile Warendile walipotea na ngamia samani, ili tuweze kutafuta namna ya kulete Warendile ndani ya Uislamu, kwa sababu sisi tumekuwa majirani na Wasamburu. Lugha yetu ya Kirendile ni Kisomali, mila yetu ni Kisomali, lakini kwa sababu ya intermarriage na Wasamburu huwezi tofautisha Rendile na Msamburu kwa mavazi. Wakati imefika, asanteni sana, sitaki kuchukua muda nyingi. Viongozi wako hapa, magavana, majority leader,
tafadhali hebu tulete fikra pamoja namna ya kulete Uislamu kwa Warendile. Asanteni. waa maqasheen ninka wuxuu dhahay did lama dhaho reer doon baan nahay. Marka next I'm going to call two honorable members, very famous, very important leaders, Honorable Rahma Daldesa of Isiolo County and Honorable Safia of Ijaz. As we welcome them, I just want to observe some protocol. Mheshimiwa Ahmed Kolosh has arrived, Farhia Abbas MC Isiolo, Senator Nekro Ibrahim from Somalia, and I also wish to recognize the presence of the corporate world, Captain Mohammed of Skyward Aviation. Thank you. Thank you so much. Assalamu alaikum. Wabar, Abdullah Wabar, governors in the House, senators, my colleagues, members of parliament, our distinguished elders, my colleagues, the ladies, all the protocol observed. Assalamu alaikum. Assalamualaikum. Amiga wa ya Rahma Dida Daldesa wa haigatura de Isiolo County. Women rep. Abo Wabar. Soda wo. Otherwise, I said to him, I understand Somali. I understand quite a lot. But I want to say it gives me an immense pleasure to be here, standing in front of our ulumas, our spiritual leaders, our leaders, and to address. Really tells us that we have created a space for ourselves as women, as Muslim women. We feel proud that you recognize us and you support us, and we are not taking it for granted. I got to know Wabar is coming from my friend Mheshimiwa Meja Bashir. When he visited Ethiopia, I sent him with greetings from the Borana community of Isiolo and Marsabit, and I am sure he delivered, and he told me he was coming. Today I canceled my activities in Isiolo and I said I will be here. We share quite a lot with the Godogodia communities. No wonder we coexist very closely in Ethiopia and even in Kenya. We have our spiritual leader called Abagada. He was in this country, and the message he brought was a message of peace, of love. And quite a lot of you had gone to see him. And today being here really should take us to another step. And I therefore urge my colleagues, the members of parliament, the politicians, let us learn from our leaders. Let us learn to tolerate each other. Let us shun the divisive politics. The politics of hatred should stop in the pastoralist community. It is the agenda we as women leaders are ready to take over from our men, because our men seem to be taking us, dragging us back when other Kenyans are moving forward. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abo soda wo, Isiolo na no very much. Bismillahirrahmanirrahim. Ummadda sharafta leh oo maanta halkan iskugu imaatay, waxaan rabaa inaan ku salaamo salaanta qaaliga oo islaamka. Assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Salaanta markaan ka baxo waxaan rabaa inaan ku mahadceliyo ummaddii soo qalqaalisay shirkan qaaliga ah oo wanaagsan oo la heli karin fursadan la isu keenay ummadan halka iskugu imaatay culimada leh siyaasiyiinta leh aabooyinka leh hooyooyinka leh waxa weeyaan fursad la heli karin oo qaali ah. markaan fursadda ka baxo haddana ilaahay baan ku mahadcelin rabaa, waayo wuxuu noo keenay fursad aabaheen boqorkeena inuu noo imaado Ethiopia nooga keeno halka noo imaado a sample type of unity and peace among everybody in the society. marka aad baa ilaahay ugu mahadcelinayaa. ma hadda ilaahay markaan ka baxo waxaan leeyahay boqorkeena u soo dhawow.
waan ku soo dhawaynaynaa gacmo furan baan kugu soo dhawaynaynaa hooyooyinkii iyo gabdhihii Soomaaliyeed oo Kenya ku nool ano afkooda ku hadlay waxaan ku leeyahay soo dhawow wadankeena ku soo dhawow waan ku soo dhawaynaynaa waan ku sharfaynaa waan ku boqoraynaa aad baan kugu faraxsannahay inaa maanta nala joogtid waxa weeyaan arrin qaali ah oo la heli karin fursaddanaytu fursad ciyaara ma aha waa fursad aad aan ugu faraxsannahay. We feel very humble, very privileged that our king is among us today. The only message we are sending home is our king is coming to Kenya to send us one message with us as leaders of this country. And the message that we are passing over to everybody is the peace of unity and peace among the pastoralist community. We have lost number of human beings and their livelihoods among the pastoralist community. And today, let's start a new chapter, a new history, and we go to the next level of unity, peace, and love among the pastoralist community. This is the message that our king has brought to us, and we are saying we do appreciate this. We're not taking it lightly, and we say thank you very much, welcome, welcome again, and welcome again. We'll take you round, we'll go with you to Wajir, Garissa, Mandera, Isiolo, Marsabit. Thank you so much. aad ma santahay Safiyo waxaan u yeeri doonaa senator Nimco oo nooga imaaday Maxamed Muqdisho waa gabar senator ah oo qolada Transorka loo yaqaan. Now while we wait for her, I want to allow two very senior politicians, our former deputy speaker Farah Maalim, if he's still here, and Honorable Adam Kainan. That will be the end of the members of parliament, and then Honorable Fatuma Gedi, if she's around, and Honorable Fatuma Gedi. That's then for members of the house, of the two houses. Next we'll go to the Deputy Governor Mandera, then the governors, and our majority leader, in that short order. So please, you have been very patient, keep still for a few more minutes. So the way. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا ورحمة السلام يا قفل مدعي في المنصب فيسا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا لك نسوي دويننا بقر كينا وبر عبدي وبر عبد الله وبر عبدي كل يوم حرمنا كسور دويننا قلبي فورا دعم فورا رونتي من شرف نوت عنا كل يوم معنا حفلة فيسا قدري كسور دوين فيسا وحنك الله ربعنا ما عرفت قعد صنف إنه وبرك النود دعيه دعاء ما تجلس أفريقيا جودهنا عباهنا هاي إنه نود دعيه إن شاء الله بإذن الله وحنا كلام معنا أصلا نود دعيه إنه له عمر دار عافمات عبادة سبصية عمر جس العمر ما قدره هذه هذا أيديهم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad buu mahadsan yahay Mheshimiwa Kainan iyo Mheshimiwa Fatuma Gedi. She's around, please move forward. Sorry, I forgot the Deputy Governor for Isiolo also. So immediately after the two, if Farah is not around, we'll give 1 minute to 2 minutes each to the two deputy governors, and then we give it to the governors and our majority leader. Mheshimiwa Kainan, 2 minutes please. Thank you, Abdelkader. Kwa vile tuko wengi, mtaniradhi nitasema kwa Kiswahili kidogo, pengine Kiingereza, alafu wabari yetu, waheshimiwa walioalikwa, wananchi na wadugu, assalamu alaikum. I will also be very brief. It gives me a great pleasure. I know my leader of majority is also here, and ultimately I'm sure you will speak on behalf of many. I've been asked to speak on behalf of a group of parliamentarians, and those other members of parliament will not get an opportunity. For me, this is an eye-opener. Just last week, we congregated at the next hotel here to celebrate the achievement of brother engineer Mahbub. ويك هذا اللي صرنا فيه وحن سكوبي من هالكا وحن كهالليني نين شرف له وإنجينير لدا ومحبوب والشقوة ناكسن وسوقبتي ودمها وسكوما عاوة إيجاد ما أنت هالكا وحن لبنا ونكسر بريد جرينا هنا نين قال نوا وورك أنك والدينا إنه نوي من هالكا وقت كان أنك ودنما كان يعني ما مركان هذا قيد مهم أو شيء غير عم بس رجع إثيوبيا وقتي كهرو جميسي وإمادن أفريقيا حدود مجري جرين عد كسر مشاهير داس فيرسين the migratory routes
cid kastaba waxay degi jirtay meeshii waqtigaas ama nabad ay ka jirta ama uu daaq ka jira ama uu biyo ka jira amaba uu dad walaalaha ka jira laakiin uu imaaday Yurub halkaa la imaaday waxaa la hagaajiyay wax la yiraahdo Partition of Africa qolad kastaba meel baa lagu xiri tii waxay keentay laba walaalaha inay ku kala jooraan laba xuduud ah xuduudku sugo ay hadaas fiirisid waa imaginary yani maanta lama kala reebi kara wabarka ninka u socdo oo Ethiopia degan kan Kenya wax kaliya oo kala reebi kara waa nabadgelyo xumo marka message-ku uu arko noo keenay waxa weeyaan oo waliba annaka kala aan nasiib ku leenahay muddo dheer baan leeyahay ama arki doontiin ilaahay baa waqtigan keenay inuu noo yimaado message-ku ku wadana waxa waaye nabadgelyo walaalnimo iyo ma dhici karta nabadgelyo haday jirin shalay meeshan joogno waan ka dhan nabadgelyo haday jirin wax dhici kara malaha maxbuub markaan ka hadlayna shaqada uu qabtay wuxuu ka hadlayay inuu isu keeno wadamo ay dhibaato ka jirto wuu soo hagaaji taariikh buu keenay wabar waxaan ku leenahay soo dhawaaw waan ku faraxsanaa message-kaas noo wadid nin kastoo halka joogana maanta waxaan rabnaa inuu wadanka annaka halka aan joogno inuu u duceeyo waayo hadday nabadgelyo jirin shirkaan la iskugu imaadeen soo xataa walaalayeen nooma imaadeen waan inaan u duceeyno wadankeeni Kenya iyo madaxdiisa ayadana sida nabad looga helo kelmad kale aan ku soo xiriyo oo dhahay Sheekh Maxamed adduunka dhan taariikh baa ka socota war Soomaaliyeed wadankan annaka aan deganahay waxa la dhahaa jira and I will say this maybe in English one of the pillars of our foreign policy is cultural diplomacy actually it's called the 6 tenets of our foreign diplomacy and luckily when the then Minister for Foreign Affairs or the foreign policy technocrats wanted to acknowledge the first signed foreign policy. I was the chairman of Defense and Foreign Relations. There are two critical things we included, the diaspora desk and the cultural diplomacy. Maanta wabarku wuxuu noo keenay in waxna kala reebi kara ay jirin annaka isku dhaqana annaka isku diina nabadgelyo ku nool marka waxaan leenahay dadka ku soo dhawaada meeshii aad joogtiinba walaalkiin baa in imaaday gacmo furan ku soo dhaweeya aanu si wala duceyno jabta cusub aan furno wadankeena aanu duceyno assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh aad u mahadsan yahay mashmuuc Fatima Geedi waxaan rabaa inuu ii soo istaago Senator Abdullahi Kabreta fadlan السلام عليكم وور عبد الله وور عبدي iyo martida sharafta leh waan in salaamay runtii maalin aad iyo aad u farax weyn oo farxad weyn la weeyaan anigu naftinkayga wabar waan maqlay laakiin maantaan ku arkay waana ku faraxsanahay inaan ku arko dadka ka barto runtii halkan waan wada fadhinaa maanta waxaa wanaagsan iridan markaan ka baxno wixii aan ku hadalo dhan inaan sameyno ku camal farno iyo inta naloo sheegay inay run naga ahaato niyadda la soo wada furo maxaa yeelay Soomaali hadaan ahay ama reer Noodistan hadaan kulli beel walba waxay qabtaa suldaan waxa wanaagsanaan lahayd Soomaali meeshii joogto dhan naftinkeeda inaan fiirino si iskugu wada imaan karo oo farxadan maanta aan qaybsanay aan mar kale aan qaybsan karno maalin hore sida la sheegay waxaan isku kaan wada keenay walaalkeen maxbuub maantana waxaan isku kaan keenay wabar cabdille waxaan rajaynayaa insha Allah wax khayr qabo mar walba isku kaan keeno shar isku kaan keenay maxaa yeelay hore in loo socdo gadaal loo socdo ma rabno marka wabar waxaan ka codsanayaa inaan noo duceysid insha Allah maxay la kubsiga gabdhaha aad buu batay gabdhaha waa la dilaa dhulkii waa la xoogaa dhiig badan raatay inta sameeynaysan Soomaali waayo inta anaga dadka isku dhow marka maanta waxaan ka barano tan insha Allah soo dhaweey wajar waan kugu soo dhaweynaynaa aadan ku soo dhaweynaynaa waan ku ixtiraamsanahay adigana wadanku tagay ilaahay inuu dadka ummadiisa mideeyo dad hal naga dhigo annagana wixii maanta aan maqalnay inaan ku camal furno niyadeena aan furno assalaamu calaykum waraxmatullahi Senator Muhammad adna isoo saafado السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلعوا سودو هذا عمر أبتي سودو أنا وحنا سنة الفجر عبد الله إبراهيم الليلة بيش الجيران سوجينا لكن غير وجر لا يصود سيد مركوا سودو وينينا على فرنا سودو وينينا
adiga iyo maxaa la yidhaahaa guddigeeda oo dhanba nataka kuwaeleza Wakenya ya kuwa Sudan ama Wamar Abdille, Wamar Abdi ametoka Ethiopia. Yeye si mtu wa Dagodia, yeye ni Msomali, ni mzee wa Somali wote, na amekuja kutuambia, kutuletea usalama hapo kwetu Kenya. Ingawa ametoka Ethiopia, sisi kama Wajia, Mandera, Marsabit tuko jirani na Ethiopia. Na usalama across the border is very important kwa sisi yote, na bila shaka mtu yote atafuta usalama, sisi pia tunataka na tunafurahia, na tunawaambia watu wetu tufuate hiyo mila ya Ethiopia vile iko. The leadership there, unaona vile wanaendelea, kazi iko mzuri, lakini sisi yetu sio hivyo. Waxaan ka codsana waxaan dadka u sheegayaa inay Ethiopia annaka naga fiicanto maadaama nabadgelyada oo xaqiiqo wadiin annaka mar walba waa islaynaa dilkan badan Ethiopia ma jiro annaka Soomaalida Kenya aad ay isu dhibnaa Wajeer Mandera ilaa Marsabit Booranta waa Soomaali Rendil waa Soomaali Gabra waa Soomaali Saakuye waa Soomaali waxaan oo dhan magaciisa la kala bedelay dadkii oo dhan waa iska Soomaalida meesha ilaa Tanarifa marka waxa way waa sheekadii magacii Oromadii oo weyn la kala saaray marka Ormo iyo Soomaalina waa islameyshi waxaan ka codsanaynaa dadka Ethiopia ku naqato dadka ay isu geentid annagana noo yeer waa ku imaanaynaa oo ku shaqaynaa waa mahadsanta soo dhawaw nabadgelyo insha Allah. Let me recognize a number of honorable members who are around while we wait for Senator Honorable Ahmed Abdsalam of Wajeer North. We're most grateful. Honorable Abdikarim Omar, Honorable Abdikarim Omar of Fafi. Yes, Honorable Abdikarim Osman of Fafi. Honorable Abdi Mude of Lafay. Honorable Omar of Wajir South. Honorable Senator Farhia of Wajir County. Honorable Kulo of Banisa. Honorable Rashid of Wajir East. Honorable Kolosh of Wajir West. Honorable Bashane of Tarbaj. Ambassador Mahmoud Saleh and directors of Bluebird Aviation, Hussein Unshur and Khan of Farah, and all other dignitaries. We are most grateful you have graced the occasion. Senator. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم. وبر سودا واو هذه وتيمتا سودا والا مركا وحا فرحنا احنا ما تماني وحاولنا قيمنا سود تماني وفرح سنهاي سودا والا horta waxaan apology ka bixinayaa gabna Ali Rooba oo safar u kacay uu joogi lahaa marka apology ka bixinayaa ya pili vile mmesikia leo tuko hapa kwa sababu wabar yetu ya Ethiopia ya jamii ya Dagodia alikuja hapa leo ili atusalamie sisi kama watu wa Kenya. Na vile mmeona hapa tumejaa hii hall hii, Wasomali wote na Waislamu wote ambao ni jirani wamekuja hapa na tunakaribisha yeye. Na message yake tuliambiwa ni mambo ya amani na tufurahia kwa sababu amani ni muhimu sana kwa nchi yetu na hija yetu kamili. Marka soo dhawaw haji soo dhawaw noona ducay kullay dadka aan ka imaanay marmar qaraba aara ugu dhacda marmar aan jiraan marka insha Allah marka aad joogi doonta idaas joogi doonta oo hal doona marka insha Allah noo ducaya dadka ma tahay soo dhawaada. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. ومعتني Senator Deputy Governor Isiolo and Deputy Governor Mandera. بسم الله السميع العليم. وبر عبد الله وبر عبدي سودو وحان سلام كاغا كينا county Isiolo. I want just to speak very shortly. Mine is to thank the Weber who has come and to make sure that he's not only Weber for Dogodia, but he's Weber for all the people of Somalia. And then I want also to welcome him anytime he comes to Isiolo. We will welcome him so that he can be with his people and his country. The other thing I want to recognize is Ibrahim Rashid, who sits there, to make a point that if we could have brought the people, the leaders of Kenya in London, and made them to make a unity, why can't we not make the Somalis in this country to come together and see? We have seen all other people
people who are going together and charting their path, but we Somalis up to now we have not charted. So I'm calling upon the leaders led by our majority leader, Adam Duale, and the rest so that we can come together and chart together one way for the Somali. Weber also do. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم ورينتي وعبد الله وعبدي iyo odayaasha la socdo waxay soo dhaweynayna waxa isku soo dhawaanaysiin dhulkeena waxa isku soo dhawaanaysiin dadkeena waxa isku soo dhawaanaysiin Kenya mid kale aniga waxaan ahay deputy governor Mandera iyo Ethiopia waxay leeyihiin xuduud dheer waxaan naga dhaxeeya xiriir gaar ah naga dhaxeeya waa maqlayseen odaygii MK beeshu uu ka dhashay beesha anaga ka dhashay inay kaalin weyn ka qaadanayeen dubitaanka wabarka beelaha kale meesha degan ayagana xiriir dheer ay leeyihiin dhulkaasay tawaayo wabaryaalkoodii ayaa meesha degan saas awgeed waxaan kuu fidinayaa wabar inaad mar noo imaadid si gaar ahaan Mandera aad noogu imaadid اعتقادكاي waxaad ku hagaajinayna insha Allah ayadoo ku yeeranay wabarkii tawaayeer iyo xaqiiqada ku dhammaan aan naga sida runtii wabarnimada masaba nidaamka meesha ka jira waxa waaye before colony institution government Israel waa arkaysi waxa jiray barlamaan waxa jira wasiiriin waxa jira madaxweyne nidaam ma jira waa nidaamkii coloniga as meesha lagu imaaday habkaas ida hab heli kara maahan وانا شيء في عن وكديشة في عن يلا مركو عن أبغى سومالي كلا عدي قبطوا قبطوا عدي قبل إنه كديشة في عن قاتل ووركم سيدنا مقطع وور سومالي حقيقة عيالي لونستان مع سوماليا مع الجيبوتي والاسكرين مالي هو شايف والاسكرين مالي وور هذا سو ما سنتهاي وها كلمات كانوا وصل سيدنا مقطع وكانوا قطع هل كل شيء له وكان دار ما ينادي نود عساره دي أنا أتذكر الوقوي بل تركوب دارو كدعجاج تركوب باشيله أنا قدي أنا الصومالي الوقوي بل ركيا كودي والوراث وراث أنا أقول لهن المسيح حساب أنا أقول لهن الجلوري عارف أنا دعوة الوصول جبتك الوصول دعيسي سي وراث كذا السلام عليكم let me recognize a few other dignitaries, the Deputy Governor of Wajir County, Ahmed Mukhtar. Let me also recognize the First Lady of Wajir County, Mama Khaira. Let me now invite the Governor of Marsabit. Mahmoud actually took a flight from Marsabit with the whole delegation for this function. Mahmoud Ali, Governor for Marsabit. Walalayana, assalamu alaikum. Anega Somali maya lakini dib male. Basi mimi nimefurahi kuwa hapa siku ya leo. Mzee wetu Wabar Abdille, viongozi wote, mzee wetu tumefurahi vile umefika. Kusema kweli mimi kwa niaba ya jamii ya Borana acha niseme, lakini siko hapa kwa niaba ya jamii ya Borana pekee. I am here on behalf of Marsabit and indeed all Borana speaking counties like Isiolo and Tana River. Lakini jamii yetu ya Borana wakifikiria juu ya Degodia wanafikiria tu hawa ni pastoralists ambao wako na wanabiashara watajiri wengi, wasomi wengi ambao tradition yao ni Kiislamu pekee. Hatukujua ya kwamba wako na traditional practice similar to ours. Sisi kama Borana, vile mzee wetu Boticha alisema, tuko na abagada yetu anakaa Ethiopia. Na vile nimezungumza na gavana ya Wajir, amenieleza kidogo, karibu inafanana. Ni vile tu king yetu Wabar anatawala kwa maisha yake. Kama akipata nafasi
is always the Wabar. Lakini Borana Bagada is there only for 8 years. Only for 8 years. Na huyu akimaliza wakati yake, lineage yake, wengine wanateuliwa kabla ya wakati hiyo. Kwa mfano, wiki 3 iliyopita, Abagada yule atatawala 24 years to come, tayari ameteuliwa. The current one is 71st Abagada, Kura Jaso. Hiyo ni kitu mpya nimejua leo, na tumeheshimu jamii ya Degodia kwa vile wamemkaribisha king yao ambaye pia ni king yetu. Sisi kama wafugaji tumefurahi, tumekukaribisha, tunakutambua, na nimeongea na gavana mwenzangu. Hakuna haja yeye aende kwa counties ya Wasomali peke yake, lazima atembee hata Marsabit ni kwake. Alafu next time we shall host all of you guys together, Abagada of Borana, leaders ya Gabra, leader ya Burji, ya Gari, ya wote wakuje pamoja, wahubiri waseme pamoja, kwa sababu wakikuja kando kando labda wengine hawatapata message. Na hii message kwanza is very important for Marsabit. Sehemu zingine zote imetulia, lakini even last month kule iko maneno kidogo, kuna kundi kidogo haisikii maneno, na from today kama wakianza maneno tena tutaripoti kwako Bwana Wabar. But I'm here on behalf of those people from those counties. I want to ask kindly, watu wa Marsabit wote, watu wa Isiolo wote, watu wa Tana River wote ambao wako hapa kusimame tafadhali, muonekane. Basi tuliposikia ya kwamba Wabar wetu anakuja, tukawacha kazi ile tunafanya kule Marsabit, mimi mwenyewe kachukua ndege nikakuja asubuhi. Hii ni jambo ya maana sana. Sisi wenzangu kama sehemu kame, counties hizi za wafugaji, lazima tushirikiane kujenga umoja. Lazima fikra zetu tusahau maneno ya kubishana kila wakati. Hii inaturudisha nyuma, inanyima sisi nafasi ya kuendelea. Katiba yetu katika Kenya imetupatia nafasi ya kujiendesha, lakini kama kila wakati tunazozana, hatutakuwa na nafasi ya kuendesha sehemu hizo, na tumeumia tayari zamani ya kutosha. Lazima tushirikiane, tuungane mikono, tuhubiri amani, na tunasema ndugu yetu, mzee wetu Sodowan, Nairobi, Kenya. Let me recognize two of our former governors, Governor Nadif of Garissa and Governor Ahmed Abdullahi of Wajir. Let me now call on Governor of Garissa, Governor Ali Guno. While he is on his way, let us have Governor of Wajir also preparing. Thank you, Governor. I am really grateful with the patience of the audience. السلام عليكم. وبر عبد الله وبر عبدي سولو أدبر فرحسنا سفرنا على هالكان أمتي وأنا كرسي فرحسنا ما أنت أمضى ماشى الصوب حضي سولو ويسي الشركة بركيسة كسوق بشي أنت وحش فضل أبوها يوم وحلكة وين قال هيسو أنت هدي أن كيف أنا حاول شرفتها هي حشمتها أنو هينو ومضي هالكا كاغسو الرئيسي ومضى الدقودية عد في عن ويو موافقة في عن صومالي لماذا نكون في عن وحد صومالي صور حمرنا قيب كقاتال مرق حر لماذا الله هلي كينيا أنك تلاها قل ما في عناتي هم قادنا وحنا هاي حر لما ربنا حلق أبوه رو وجرب على جسورك قولي رفعنا ما هذا الدور markii wixii uu soo aan wax soo weyno soo noqonay wixii dhaqan ahaan ee dawladda Kenya lagu joogay madaxan bay ka aayeen todobada sano ee soo dhaafay dawladda wajeerka ka dhalatay oo Soomaaliya ay ku idishahay madaxa ka aayeen wax ama dib oo naga soo gaaray ama naga soo sheegtay male
شرفت عدة أصلا وقوسه دوية عدة أنا وغير وحاول العدة ولقي واحد شام كوين كمان الكرسي على واحد ما أعرف مع الإبراهيم وشام العدة قاعد يصدقوا إبراهيم يقول عبد الله هذا شام كذا لو ولقوا الدومي شيء هنا الدولة هي وبر هي مدح لما ملك الوجه نيجران إلا أنا كان أدي بعد وجري لها وعنده لها مرت عدة يا الله وشيكتها سداسة وكو قال لي لكن عدة واحدة وأي كنتي يوحى الله وشيكت ما أنا وإحنا هو قصبنا دون مجري أدبا أبو فرسان ما دعاه معطي وبرنا بقولي ما أنا المغربي سوماليا ممكن يسوي جفتي وحمل عيب بدن بالك مالك وجاس جراد سرطين وحول متى وبر خدمت قرصون بك أنا بقولي ما مغربي لو حمل مالين عاو لي وأوتك ما كل شيء أنا وبر مالين أنا كمان شو وقتي على هو قابل أنا قول رالي تكون مرتكو يعي إن الميزانية اللي صاروا وحلو شيء ما في حلو لا وحي جيران إلا شيء وين في عمل وحن هذا هو فرحسن إن تكون معطي هذا هو وضن نبض إن تدخل هو ذا الولاده سومالي مسلم جيست أفريقيا بيعطي يرد بايجته وكذا حيسو ولا لها نجا تقولي يجرب مرة والبنا ويسو نقطة يبدأنا ويكنتا أنت نظرنا خلت عن وضلهان حل كمان جاي حان ربع ابنك هو أهتو رالي لهو أنت دمشي جوتو تذكر ولا نجى نبض حضور الناس كدونتو ودبك عنك أنا عيب الوعي اللي نجى تبقى ماكو مكوابر وصوله الدولة فرحسن هاي وعن رالي ما كنا هاي حكومتها ومدنا ألف وفرحسن هاي سولو وحي طلع أنا كنا روجا بعض حاجنا جنا ديار هاي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. aad buu mahadsan yahay majority-gan sugaya inuu soo galayo waxaan rabaa inaan fursad siiyo daahir sheekh axmed oo beesha sheekasha kadibna aan professor qalooco intaan sugayna madabida بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد رب الله خير وبركة يوسف الله صعبة ولما بدينك سياسيين يعني كمية وعرفت كمان قبوا سنسيالكم رجالكم يا ملاح فريق قوة الله مسؤولين جوهرة وبالعبد سودو dadka ayuu ugu timid ma asbabtii aad iyo aad ku soo dhaweynayna aad waan kugu faraxsanahay aad iyo waqti oo kala socda runtii waa wax hore inoo waaysan oo kale maanta waxa weeyaan runtii baal cusub ayaa furtay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii inaad halkan timaado oo mujtamaca intaasna adiga ku soo sharto ku soo dhaweeyo dhammaan waxaan u celinaynaa dadka ku soo dhaweeyay hawsha intaan soo qaadiyay xilka weyn isa saaray aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa war waxaan ku leenahay meeshan caasimad iyo qaad ka timid labadaba ummadda Soomaaliyeed ee joogta waa inaad dadka taxalisaan iyo dadka kale jiiraanka intaba nabad hadii la waayo wax wanaag ah oo jiraya ma jiro nabad ayaa caana lagu maalaa wiil ku dhashaa gabadh ku dhalataa waxaan ka codsanaynaa marka inaad hawshaas qaybta adiga kaaga aadan aad xil iska saarto oo suldaamada kale iyo garaadada kale iyo warada kale aad la wadaagto sidii ummadaas ummad looga dhigi lahaa la isugu keeni lahaa runtii dadka meesha jooga waa dadkaagii martina ma tihi baan ku soo dhaweynaa si xishmad la ku soo dhaweynaa aad iyo aad baan ku soo dhaweynaa wabar cabdina annaga maanta naguma cusbee wabar soo jireen oo taariikh leh inuu yahay aad iyo aad baan waraynaado qawaayilada Soomaaliyeed kolka laga sheekaynayo waxaa la dhahaa qawaa'il shanta meel ay joogaan ba halkaan namarkiisa qaadan cidda dawoodi baa jirta la dhahaa waa keligood waxay taa ku tahay xidaan kale suldaamo badan bay leeyihiin garaado badan bay leeyihiin aad u qaybsan yihiin laakiin ciddaas dawoodiga ee cidda weyn ee xajmiga leh halkaa oday baa amarka siiya hadda ka hor ayaa hawl isku qabsanay
markaasaa qolo uu si khaldan u tiri suldaanka nagay waaka laba dhamaataa la yidhi suldaanku aan inoo gaarbaan ciddii dawladii baa na dhihi dhaqankana ma naqaan markaasaa war maxaa jira suldaankii dib hadduu joogo ana gaaro waxaan cafis ha dhaho nusna siiya ha dhaho marka wabarkana waxaa la yidhi hadduu mar meesha fadhiyo dagoodi nin baa laydinka dilay samri hadduu yidhaha waanu samrayna horaan u soco nus qaata hadduu yidhaha nus waanu qaadan hadda ka hor bayba saa noo soo qabsatayoo runtii wabar jira inuu yahay oo muwaafaqo leh oo reerku ku midaysan yahay dadka deriska ehla degana ay yaqaanaan aad baanu la soconnaa taana aad baa si gooniya ayay beesha iyo wabarkuba ugu mahadsan yihiin waana arrin soo jiraana runtii meelaha la isriixriixi jirado qabiilaan dheeraha kama imanayo kullaankaaba kama imanayo ma ahee waxaaba laga yaabaa beelihii waaweynaa dagoodi inuuna wabarku ka iman laakiin muwaafaqada intaa dhan ay boqolkiiba boqol tahay aad iyo aad baad u mahadsan tihiin soo dhawow wabar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu We're almost at the end. I will, after Professor Koloco, call Governor Wajir. Thereafter, we will have finalization on the Kenyan political leaders with our majority leader. We'll thereafter invite the spokesperson of the Wabar, and the Wabar himself will give us prayers. One domain noogu xiga Professor Koloco 1 minute. Professor Koloco waa nin wasiir ah oo nooga imaaday Muqdisho. kadib waxaan ku xijinayaa gabanaga Wajeer oo asagana khudbad yar jeedin doona waxaan u dambaysiinaynaa majority leader-ga asaga noogu dambaynaya xagga madaxda waxaan ku wareejinaa kadib afayeenka wabarkan wuu noo duceyn doonaa hadduu leeyahay بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمانتي نول بابا درجة باشو كفرديو anigu runtii Soomaaliya ka mid protocol-ka Kenya ma aqaan marka waa ka gabanaya xoogaa laakiin waxaan filayay meeshu aad barro ducaale inuu ugu weeyo marka aadan barro salaam dhammaan MPyada odayaasha meesha wada jooga xoogaa waxaad dareemaysaan Soomaaliya ka mid MP culus oo Soomaali ah waa idinla fadhiya ماشي سيدا هنا تقدر ومحمد عمر عرتقالي وكان وسطي نفري عمر عبد الله أنا أقول سجاشن كي مركب دجال كحن وكنا عاي سجاشن كودي حمر وحقوا عرري المجال هذا فيلد وأنا فاهم كرتين سببت وحكينا تضاف سنوات وحكى برناي وعمر عبد الله يا عبد الله حاجة عدو إذا لفظوا أو ما أنت تاريخ دور كذي كشيء كينا وإذا كم بعدين أنا صوت وبرتين نقدي نعبر أنت كذي وبرو صومالي